oscuro. والله كايغا بختي كايغا بختي مكاستا حلقي وحي حتى يستوعب. ما يسابك وين ما يسابك بلا بكر كيف كيف بس حاجة أنا لسه بروح أنا الحمد لله كلها هي تلفوننا تلفوننا دي أنا لقيت واحد حلا أفضل بيتي إن بس نقول لها أنت استجيب بس واي ديار تدوي له هو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isugu yeelnay wasaaradda caafimaadka wadadeen dadaalkii loogu jiray baryahaaba diyaargarowga la socodka iyo wax ka qabashada aafadan kusoo kordhay caalamka oo xanuunkan COVID-19 maanta oo bishu ay tahay 31 bisha 3 2020 waxaan xaqiijinaynaa in ay jiraan laba xaaladood oo qaba xanuunka COVID-19 oo midkood ku sugan yahay magaalada Berbera oo dhalasho ahaan uu yahay Chinese kalabaadna uu ku sugan yahay magaalada Burco oo ah qof Somalilander ah oo haysta dhalasho dalka Ingiriiska labadan xaaladood ama labadan bukaan waxaanu arrinkooda ogaanay 26 bisha kadib waxaanu sameynay maalintii Jimcihii oo bishu ahayd 27 waxaanu amar ku siinay maamulka caafimaadka ee magaalada Berbera iyo Burco in lagu sameeyo shaybaar labada qof si loo hubiyo in xanuunka qabanayaan kale shaybaarkaasi waxa sameysay wasaaradda caafimaadka natiijadii soo baxday markaa waxay noqotay in xanuunkaasi ay qabaan uu jiro laakiin si aan u xaqiijino ama aan u hubsanno waxaan u dirnay dhiigoodii mar labaad shaybaar ku yaal dalka Kenya oo la yiraahdo Camry 28 bisha oo WHO ay aqoonsan tahay kadib markii baaritaano dheeraad lagu sameeyay waxa xalayto la soo gaaray in la soo xaqiijiyay oo ay iswaafaqeen baaritaankii nagu aan sameynay iyo baaritaankii uu sameeyay shaybaarka ku yaal dalka Kenya labada qofna yihiin laba xaaladood oo xanuunka coronavirus qaba isla markaa waxaan anagu amar ku siinay dhammaan maamulada caafimaadka ee labada gobol ee saaxiib inta dheer inay bilaabaan in la daba galo ama baaritaan lagu sameeyo dhammaan dadkaasi ay la kulmeen ay la joogeen ama intii labada ay ku sugnaan labada magaalo ay sarkeen si aan u xaqiijino ama aan u hubino inay jiraan dad kale oo xanuunka iyaguna qaba waxa kale oo idin sheegnaa inaan baaritaanada wixii ka soo baxana aan idin soo wadaagi doono labada xaaladood ama labada bukaan aan idin sheegnay labada xaaladoodu way degan tahay aad bay u fiican yihiin